والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركو الرئيس وحو ناكسن صحافة وان سلامينا صلاة الإسلام كانوا نقول سلامينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا حيقا وحانو مهنقنا دمان شعب وينها سوماليلان 13 نوفمبر xuquuqdooda dastuurigaa qaatay ee codeeyey codayn xoor ahayd oo ay u soo banbaxeen sidii ay ugu dul qaateen ee ay u codeeyeenna waan uga mahadnaqaynaa. ilaahay baa mahadda leh subxaanahu wa tacaala, isagay mahadoo dhani u dhan tahay. ilaahay nagu ilhaamiyey inaynu maanta qaranka Somaliland uu taagan yahay meel wanaagsan. waxaan maanta iclaaminaynaa gudoomiye Cabdiraxmaan musharaxa xisbiga wadani iyo aniguba waxaanu ka soo baxnay shir noo socday 2 maalmood. waxaanu u wargelinaynaa shacabweynahana u sheegaynaa inuu nuugu soo dhammaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afgarannay qodobadii aanu ka wada hadlaynay. waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Cabdiraxmaan oo jeclo badan ka leh qarankan, turaalana u sameeyey qarankan, ahna mudan inaynu ku wada ixtiraamno meeqaamku taagan yahay. haddaanu nahay komishanka qaranka Somaliland waxaan uga mahadnaqaynaa shirkii aanu wada galnay 2 maalmood siduu noogu dul qaatay, siday ka muuqatay naxariista iyo turaalaha uu u turayo dalkan iyo dadkanba. si degan waayo aragnimo leh ayuu Cabdiraxmaan gudoomiyaha murashax Cabdiraxmaan noola qaatay arrimihii aananu maxayda u falanqaynay go-aanna ku gaadhnay. kow, aan buuggii degmada Berbera ee ahaa codaynta, buuggii codaynta waanu ka shaafinay, waananu isla qaadanay, waananu ka heshiinay, waananu u sharaxnay, waanayna la qaateen guddoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba. waxaanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodi Jeex khaas ahaan degmada Gabiley iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan. taana waanu isla qaadanay, shaqadiina way noo soconaysaa. sidaasaananu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa. waanad mahadsantihiin. gudoomiye kusoo dhawo. waan salaamaya dhammaan shacbiga Somaliland. waxaa ka warqabteen in xisbiga wadani oo u sheegay shacabka in wada shaqayntii iyo muraaqibiintii ka joogtay ama howlwadeennadii ka joogay xisbiga komishanka qaranka ay joojiyeen, isagoo markaa tabanaya cabashooyin iyo codsiyo u soo gudbiyey komishanka qaranka inaan jawaab shaafiya laga siinin. saa daraaddeed komishanka waa wada hadlaynay 2 cisho soo socday. waanu mahadnaqaynaa runtii dulqaadka ay muujiyeen. waxaanu isla garannay oo ku soo gunaanadnay in la dhegaysto dalabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka
marojeex degmooyinka gabiley iyo degmada hargeysaba dalab kaya ku saabsan gobollada kalena in qoraal ahaan aanu ku gudbinay insha allahu jawaabna aanu ka sugi doono commissionka haddii ilaahay ka dhigo waxaanu isla garanay inaanu soo celinno si loo sii wado tirada guud ee gobolka maroodijeex labada degmaba degmada gabiley iyo degmada hargeysaba waxaa kaloo dee sidaa ka warqabtaan arrinta ku saabsan buugga wuxuu ahaa buug soo galay gacanta xisbiga shacbigana aanu soo bandhignay commissionku maalintii dee jawaabtay bixiyeenna waa ogeydeen laakiin waxay caddeeyeen in buuggaasi uu ka mid ahaa buugaagtii iyagu ay lahaayeen ee ay ugu tala galeen doorashada waxaan u mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa uun dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii commissionku ay aqireen inay tixgelinayaan hadday tahay maroodijeex iyo hadday tahay guud ahaanba dalka waanu u mahadnaqaynaa taageerasheeda waxaanu sidaasaanu ku wargelinaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga haddii ilaahay ka dhigo taa hargeysana waa la bilaabayaa kuwa kalena jawaabtii iyo tixgelintii waanu ka sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan commissionka haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad ba umahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu waad mahadsantihiin